السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانku waa bil ay soomaan malaayiin muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida, waxayna ka soomaan sida cuntada, cabitaanka, sigaar cabista iyo xiriirka galmada laga soo bilaabo waaberiga ilaa qorax dhaca. Kasakoo waajibaadka diiniga ah ee Ramadaanka, soonka waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad sida xoojinta nidaamka difaaca ee jirka, yareynta halista kansarka qaarkood, gaar ahaan kansarka naasaha ku dhaca. Sidoo kale waxaa laga helaa hurdo fiican oo caafimaad leh. Soonka wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aan tiro yarayn. Waxaa halkan ku sheegi doonaa 10 faa'iido oo ka mid ah faa'iidooyinka uu leeyahay soonku. Ku soo dhawaad muuqaal cusub. xilliga aan soomannahay, jirkeena wuxuu awood u yeeshaa inuu iska saaro waxyaabaha sunta ah maadaama nidaamka dheefshiidka uu nasanayo. soonku wuxuu kor u qaadaa heerarka hormoonka koritaanka aadanaha oo door muhiim ah ka qaata koritaanka iyo hagaajinta dheefshiidka kiimikeed, miisaankaaga inuu dhaco, xoojinta murqaha iyo waxqabadka jimicsiga. soonka wuxuu ka caawinaa nadiifinta maskaxda iyo inuu dareenkaaga soo jeedo, wuxuuna kor u qaadaa shaqaynta maskaxda. sidoo kale soonka wuxuu ka hortagaa saameynta uu ku leeyahay gabowga maskaxda bani'aadamka. wuxuu gacan ka geystaa hagaajinta awoodda maskaxda ee samaynta isku xirnaanta neerfaha cusub, taasoo micnaheedu ah in awoodda xifdintaadu siyaado, waxaana yaraanaya inaad ilowdo waxa aad baratay. soonka waxa uu ka hortagaa mid ka mid ah sababaha keena gabowga. daraasaduhu waxay muujiyeen sida nolosha dadka qaarkood ay u cimri dheer yihiin cunnooyinka dheelitiran ay cunaan awgeed. waxyar oo aad cuntaa ayaa caafimaadka ku jira. mid ka mid ah dhibaatooyinka asaasiga ah ee sababa gabowgu waa dheefshiidka oo gaabis noqda oo sidii laga rabay aan u shaqayn. waxyar oo aad cuntaa ayaa u fiican nidaamka dheefshiidkaaga. soonku wuxuu kor u qaadaa xawaaraha dheefshiidka, yacni nidaamka dheefshiidkaaga ayaa nasanaya maadaama aad sooman tahay. kadib dheefshiidku waxa uu dib u soo ceshadaa waxtarkiisa, taasoo sababaysa in xaddiga nafaqooyinka laga helo cuntada ay siyaado. sidoo kale waxay tamar siinaysaa dheefshiidka si uu u gubo kaloriska. soonka ayaa nidaamin kara dheefshiidkaaga, islamarkaana kor u qaadi kara shaqada caloosha oo caafimaad qabta. soonka waxa uu kor u qaadaa nidaamka difaaca ee jirka. wuxuu badanaa ka kooban yahay unugyada dhiigga cadcad. soonkuna wuxuu ku dhiirigeliyaa jirkaaga inuu dib u warshadeeyo unugyada dhiigga cadcad ee duugga ah, taasoo keenta caafimaad qab iyo nidaam difaac oo aad u adag. soonku waa wakhtiga ugu fiican inaad joojiso caadooyinka xunxun, sababtoo ah maalintii oo dhan waad sooman tahay. tusaale ahaan, boqortooyada Ingiriiska qaybta adeega caafimaadka qaranka ayaa ku talinaya in soonku yahay wakhtiga ugu habboon ee sigaar cabista lagu joojin karo. Ramadaankuna waa wakhtiga ugu habboon ee aad joojin karto caadooyinka xun. soonka wuxuu ka caawinaa nadiifinta maqaarkaaga iyo ka hortagga finanka, maxaa yeelay marka aad sooman tahay, jirka wuxuu ka xoroobaa dheefshiidka, wuxuuna xoogga saaraa tamarta dib u soo nooleynta nidaamyada kale, nidaaminta howlaha xubnaha kale ee jirka sida beerka, keliyaha iyo qaybaha kale. khubaradu waxay ogaadeen inaad xad u yeesho cuntada aad cunayso maalintii ay kaa caawin karto ka hortagga dhibaatooyinka caafimaad sida kolestaroolka, wadne xanuunka iyo buurnida. xirfadlayaal fara badan oo isboortiga ku jira ayaa adeegsada soonka maadaama ay furo u tahay gubista dufanta. halka ayuu ka egyahay muuqaalkeena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.